magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal maanta waxaa soo gaadhay wafdi ballaaran oo hogaaminayo agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Professor Maxamed Geedi Aynaashe. Wafdigani ayaa xarunta dowladda hoose ee degmada Borama waxay kulamo kula qaateen mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladda hoose ee degmada Borama oo hogaaminayo maayirka magaalada Borama. waftigani ayaa ujeedadoodu daaraneyd soo xidhitaanka liiska shaqaalaha dowladaha hoose ee degmooyinka dalka gaar ahaan degmada Borama oo ay maanta ku sugnaayeen sida ku cad wareegtada uu soo saaray madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ujeedada ka dambaysa ay tahay in waqtiga kala guurka ama ololaha doorashooyinka soo socday golayaasha deegaanada dalka aan lagaga faa'iideysan shaqaale saa'ida shaqaalaha dowladda hoose oo haddaba si rasmi ah uga mid noqon doona shaqaalaha dowladda si rasmiyana u hoostagi doona hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland ayaa haddaba kulankani markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay agaasimaha guud ee hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Professor Maxamed Geedi Aynaashe waxyaabihii la isla qaadaa dhigay safar shaqo oo aanu saaka ku nimi magaalada Borama gaar ahaan xarunta degmada Borama ayaa waxaanu ugu soconay inaanu soo afmeerno soo suulino shaqaalihii dowladda hoose ka hawlgeliyay dowladda hoose degmada Borama in sida ka warqabtaan liiskii shaqaalahaasi aan xidhno si aan looga ololaha iyo waxyaalaha looga faa'iideysan oo aanay hadhow toole liiska wax far badan lagu biirin awgeed ayaanu u soconnaa waa safar shaqo waa wareegto madaxweyne waa wareegto wasiir arrimo gudaheed waa wareegto hay'adda shaqaalaha dowladda saa ka warqabtaan xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda iyo xeerka dowladaha hoose xeer number 3 faqradiisa 17aad waxay sheegaysaa in shaqaalaha dowladaha hoose ay ka mid noqon doonaan shaqaalaha dowladda dhexe oo hoos iman doonaan hay'adda shaqaalaha dowladda marka laga reebo siida iyo diida oo si gaar ah iyaga maamul mooyee aan loogu yeelan doonin faragelin dheeraada waxa markaa la socodsiinaynaa gabi ahaanba dowladaha hoose ee dalka ka kooban yahay 23 dowlad hoose in iyaguna sidaas leeg ay iskaga diyaariyaan dhamaanba liisaskoodii oo maanta degmadii Borama aan mar labaad soo xireyno saaka subaxii waxaanu ka soo shaqeynay Hargeysa oo dowladda hoose Hargeysa diiwaangelinteedii waa socota oo waxaanu sameynay schedule kaas oo ay ku shaqeyn doonaan dowladda hoose Hargeysa iyo hay'adda shaqaalaha dowladda oo lagu diiwaan gelinayo shaqaalihii dowladda hoose Hargeysa waxa ay iyadana daba socon doontaa in Borama Burco Gabiley iyo degmooyinka kale ee ka mid ka ah degmooyinka qaranka iyaguna aanu sameyn doono structure oo kaga qayb qaadan doono in ay ku soo afmeerno ku soo xidhno liisaska shaqaalaha dowladaha hoose ee qaranka dhamaantood istiisa waxa halkaas ka hadlay soo dhaweeyay go'aamadani maayirka magaalada Borama Saleebaan Xasan Xadi waxaanu sheegay kullay arrintan waa arrin aynu in badan shirar aynu ka yeelanay oo shaqaalaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland haday tahay dowladda hoose iyo haday tahay dowladda sare ee dhaxaba inay muhiim u tahay in shaqaalaha dowladda la mideeyo runtii aqoontooda lagu mideeyo experience ay leeyihiin lagu mideeyo mid walba xuquuqda uu leeyahay lagu bees gareeyo oo programkana uu noqdo kii in badan soo socday ee maanta xilligan soo gaadhay agaasimaha ku maasantiin horey baynu uga wada hadalnay runtii arrintanna waa arrin shaqaalaha laftigooda sugaysa xuquuqdii ay lahaayeen oo waxaad arkaysaa qof la train gareeyay oo xil soo hayay oo marka xilka laga qaado banaanka noqonay resource-ka uu hayay iyo effort-kii la geliyayna kala baxayeen institution-kii oo taalaftigooda ay tahay in tixgelin gaara loo sameeyo shaqaaluhuna qof walba xuquuqda uu leeyahay inuu helo runtii kii aqoon leh aqoontiisa inuu ku socdo ka agoona ee meeshii ka baxayna in xuquuqdiisa uu helo dowladda hoose way ka dhibadan kulay dowladda dhexe oo waxaad moodaa sidii tarmiiskoo kale inay dad aanaan dhimashadoodiiba aanaan dhalin anagu ilaa inay mushahar qaataan taalaftigeedu qofku muxuu xaq u leeyahay inuu helo weeye runtii waan idinku soo dhaweynaynaa anagu kulay liiska iyo category-ga uu leeyahay wuxuu dhan waa listed runtii agaasimayaashii ku shaqaalaha way joogaan ku sugan halkan agaasimii
maamulka iyo lacagta xisaabiyihii wixii oo dhan way joogaan wixii facility-na soo baadaan kulidii xogayii baa halkan fadhiya oo la facilitate garayni Hussein Ataye Governor Universal TV Borama.